marka ay sii macsalaamaynayeen oo sii socdeen macsalaamay lahaayeen bay gabadhiina meeshii ka hadashay tiri macsalaama oo gabadhahan ya waan xusuustay habeenkii in badan ayuu ooyay qolkiisii ma geline gurigu dayr buu lahaayay dayrkii buu wareegayo gacantu haystay oo waa ooyayo hadaladiisii waxa kamid ah ka haya ilaahay maxaad zamankan aad ila zamankan aad ii deysay oo aad naftayda u gaarsiisay ila maanta qof ajnabiga gacantayda ay taabato sheekaba sheekay keentay habeen ba October wad garanaysaan meesha maxay ahayd meeshii tarbuunka waa tii October-ta 22 October loo dabaaldegi jiray markay October taadi soo dhowdahay ayaa waxa la sameyn jiray taftiish guriyaha xaafadaha u dhow baa la fatashaa hub iyo waxa ay hadii jiraan iyo waxba laga fatashaa habeen marka aan ku qiyaasayo goor aan ku qiyaasayo 10 habeenimo ama 4 saac sida loo yaqaan ayaa 3 qolo la oran jiray dhalinta raali haliga ahaado dhalinyarada iyo qolooyinkii aan sheekadaas aan la soo jaan qaadinay odayaasha aniga safiirkii isla fahmeynay odayaasha kala isla fahmeyn waxa jiray gulwadayaal kuwa aan ahayn oo dhalinta la oran jiro shaati blue iyo surwaal kaaki qabi jiray dhalinta baa la oran jiray marka wax looga jeedayba dawladii bariga jirtay waxay uga jeedayba waxa la israacin jiray laba wiil iyo gabar waxa ay xiraasay qabanayaan oo habeenkii bay wada socdaan laba wiil iyo gabar baa la soo wada socodsiinay marka saddexdoodii laba wiil iyo gabar baa albaabka nagu soo garaacay surwaal ay qabaan iyo shaatigaas waxa la yiri waxaan rabnaa guriga inaan fatashno aw guriga odayga laha deena weelma yareer baan iska ahaynay waxaan ku soo garaacnay waalidkii baan albaabku isagu cishaha kadib horu ka seexan jiray salaatu leyl iyo acmaal buu lahaa dabadeedna waa uu soo kacay markii uu soo kacay waa maxay waxaan niman baa jooga askar oo doonaysa guriga askar baan iska leenahay ya banaanka joogo guriga inay fatashaan uu soo baxay albaabku yimid ganjeelka kore waana iska mugdiyoodeen nal iyo waxba ma jiraan markiiba salaam bay la galeen oo way salaameen saddexdoodiiba inay gabar ku jirto ma oga sheekhu saddexdoodiiba gacantu galiyay uu salaamay saddexdoodiiba sheekha way salaameen kadib way iskarteen oo mid baa gartay baan u maleynayaa waxaan xusuustaa inay mid uu yiri sheekhow annaga waxa horta la noo soo diray inaan guriga fatashno maadaama October-tii ay soo dhowdahay laakiin maadaama aad sheekh Ali Suufi tahay waa iska kaadeynayna bal noo duceey sidii adiga ay ku macsalaameen marka ay sii macsalaamaynayeen oo sii socdeen macsalaamay lahaayeen bay gabadhiina meeshii ka hadashay tiri macsalaama oo gabadhahan ya sheekhi markaasuu anfariiray oo naxay oo yiri ma gabadh baa idin la socota markaasay dhaheen ha markaasoo kale intuu miir daboolmo wax alla wuxuu hayay inuu ku dhufto rabila markaasuu ka dabcaray oo inuu markaasay carareen yagiina dabadeedna waa soo noqday gurigii markii ku soo noqday waan xusuustay habeenkii in badan ayuu ooyay qolkiisii ma geline gurigu dayr buu lahaayay dayrkii buu wareegayo gacantu haystay oo waa ooyayo hadaladiisii waxa kamid ah ka haya ilaahay maxaad zamankan aad ii deysay oo aad naftayda u gaarsiisay ila maanta qof ajnabiga gacantayda ay taabato ma aanu daadaasa hadda maanta gacantaydii qof ajnabi ay taabatay markaasuu saa guriga ugu wareegtaa oo habeenkii u dhan ooya hadda ma uusan ka warhayn ma ogeyn inay gabarta in kale ma kala garanayn surwaalay wada qabaan meeshu waa iska mugdi yani kama dhacay ama khata dhacay asaga khata uma ahay waxay ka dambi weyn oo kabiira min al-kabaa'ir habeenkii u dhasaas u wareegay oo ooyay oo ilaahay ku cabanayo la ilaahayow intan waa isoo gaadhsiisay adduunkan iga oofso fidnadan ma sii joogi kare